anigoon horta iskuulkayga dhammaynin baa guursaday. Waxaa ii dhinnaa form 3 iyo form 4. haye labada sano ayadoo ii dhimantaa guursaday. markaad Turki aaday jaamacadda cunto karinta waadi su'aasha wali waa taagan tahay runtii iga waran sida reaction dadka ka waran Of course Soomaaliya ka dhashay film Soomaaliya ka soo jeeda labada dhinacba waa la kulmay in liidho sidee ninkaaga uga tagay ilmahaaga sidee uga tagay. So ani waxaa aaminsanahay gabadha inay leedahay xaq ninka uu leeyahay kale. U fiirsa maanta familka Soomaalida hadii la dhaho nin bixi rabo ilmi iyo xaas uu leeyahay master ama PhD la rabaa inuu dibadda ka soo diyaariyo qof la hadleeso oo dhahayso waay uu ninka u baxaa waay uu xaaskiisa ilmihiisa uga tagaa ma jirto. laakiin maalinta gabar dhahdo waa baxaya waxa ka tagaya ninkayga ciyaalkayga geesaha loo wada dhagaa see ninkaaga ilmaha uga tagay ninka naa kala guursanaya yani ninka fursad uu ku aroosi lahaa siisa ninka maalinta ka tagtid oo maxaa la dhigi jaamacad ka aadid maalintu ku guurnaagta yani fursad uu ku guursan lahaa baa buu helay. dhanka kale waxaa jira kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed wax soo gudbiya laakiin aan soo gudbinin contact macna leh. Fariin yar oo gaaban hadaan ku dhaw dir maxaad oran lahayd maanta? والله waxaa dhihi lahaa waxa ku weysay sharaf iyo qurux iyo qiimo ma ku helaysid sharaf daro even hadaa ku heshid xataa magac way jiraan dad badan oo si qaab daran magac ku soo sameystay even hadaa ku heshid xataa wax waliga ku dab soconayo waa gabar wax baratay waa bulsho wax baratay caanimada hadii loo isticmaalo si wanaagsan waxa laga sameeyaa magac iyo maal labadaba. hooyanimadu waa mas'uuliyad u baahan ilaalin iyo adkaysi. lamaana wanaagsan hadii isku soo aadaan waxa guuleysata noloshooda. cunto karintu waa xirfad cajiib ah oo aan la wada lahayn balse u baahan dhabar adeeg. intaas oo dhan gabadha kulansata ayaa caawa Hodman Show marti ku ah waa Nasra Abtidoone. waxa sharaf ii ah inaan ku soo casuumo barnaamijkayga Hodman Show. halkan waa Hodman Show waxaan Hodman Cid Geelle. barnaamijkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Nairobi. martiduna waa culus tahay telefoonada soo dhaweysta. Nasra Abtidoone soo dhawow mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad baan ku soo dhaweynayaa kuna mahad celinayaa. sharaf iyo qiimo ayay ii tahay runtii inaan kugu soo casuumo barnaamijka Hodman Show. soo dhawow. aad u mahadsantahay Hodman. waana ku faraxsanahay in caaw aan joogo Hodman Show. waana kaaga mahad celinayaa casuumaadaada. sidoo kale runtii aad iyo aad bay farxad igu tahay. waayahan dambe Nairobi baan la noqotay waa kaas hada wareysiyadu maalin kasta waxaan ku leenahay kaale wareysi bixi sheeko fiican sheeg dadka ala wadaag. bal hadaynu ka bilowno Nasroy safarkaaga nolosha maxaad ka xusi kartaa iga waran koritaankaaga dhalinyarnimadaadii waxbarashadaadii? والله safarkayga nolosha uu dheeraa wuxuu isugu jiray maalmo adag maalmo xanuun badan oo farxad leh. waxa waaye sunnada nolosheena kamid tahay dabcan in nolosha isbadbadasho maalinba waji ay yeelato. marka safar aad u dheer u ahaa. waa tahay intaan aan gaarin jaamacaddii Turki loo aaday cunto karinta ahayd wal waxbarashada yaraanta iga war. والله waxbarashadeedii yaraanta xasuus baa igelinaysaa mis dhahay waa rabaa waxa inta ku keenay way. okay waxbarashada yaraanta iskuulka aad u fiicnaa ma sha Allah. dadkii iskuulka ila dhigan jiray dabcan TikTok maanta iyo social media YouTube meel walba ay joogaan. kaalmaha gali jiray markaa yaraa kaalmaha koowaad kaalmaha labaad ilaa kaalin saddexaad ma ka baxi jirin yani waxa ka xanaaqi jiray inaa kaalin saddexaad xitaa imaado. dugsiga hoose dugsiga dhexe waxbarashadeeda aad ay u sareysay. dugsi sare markaan imaaday anigoon horta iskuulkayga dhammaynin baa guursaday. waxaa ii dhinnaa form 3 iyo form 4. labada sano ayadoo ii dhimantaa guursaday. kadibna waxaa damcayna iskuulka dhanka haro. yani waxaa ka xishoonayay iskuulkii aan shalay dhiganayay anigoo gabar u istaagtaagayo sanka taagayo inaa haddana ayadoo dhahayo waa la qabaa marwo waaye way guursatay inaa imaado. yani caqabad uu arkayay. markii dambe waa fikir waxaas inaan Nasr intaasoo sano iskuul soo dhiganaysay 2 sano ayadoo ku dhiman tahay inaa ka taxaabeenin walaal labadaas sano iska dhameyso. walaahi markaa rab inaa ka harana xajigayga ahaa qofkii koowaad oo idhahay iska dhameyso iskuulkaaga igu dhiirigeliyay sidii aan marka ku dhigtay. so form 3 waxaa dhigtay anoo wiilkayga koowaad curadka uurkiisa leh sababtoo ah markaa guursaday horaa beebiga uurkiisa ka yeesha. form 4 waxaa dhigtay markaasi dhale curadkayga dhale haa cajiib. waxaa aad ka xasuusta waxaa ka mid ahayd markaa asaga dhalay kadib horta markaa uur ka yeeshay
oo caloosheedu wax yar soo baxda waa taqaanaa hooyada markay 5 bilood ii gaarto calooshii baa soo muuqanaysa mogtahay kaali iskuulka aad way ma adkaatay in iskuulka aad waxaa ka cabsanayay iskuulka ashal dhiganaysa adoo gabar yar ah haddana adoo calool qabtid يعني هذا ما أنت يوكل حلقان أجوجو وحادي إلى تهاي إنا أنا أور له هذا جامعة سكولي وحول لكن حلقاس إيش كيو يرى يو أني يو مركز أنا يران تكو جورسدي أور كي واحد عبابة بالله هاين على شيء ذا موقته وحاسمين جري حجاب كمان نصاص وهنجري مرنا بوجا هوز كلين جري على شكو قرنا عرورنو ساسا كو ديكتay marka form 3 form 4 kina babygo ii jooga dhigtay asagoo yar dimaashida ii heen jirtay oo ila joogtay ma sha Allah marka aydan iskuul dhiganayso waa isbedeli jirnay marka galab iyo subaxa kale ahayn subaxdii ayada cunuga sii heynayso aan iskuulka aadaya duurkii ka soo laabana duurkii ida iskuulka aadayso ana cunuga la soo wareegayo marka saasa ku dhameeyay aye kadib nasro ayadoo caan ah la wada yaqaano bay waxay tiri jaamacad ba u aadaya cunto karin تركي هرتا ميد كهري ساجرتي أو أنت بدن سوشيال ميديا تكيسن إيجو أوجين هي عاوينا إكشفتي دربتاي هي وحاجرتي وركاس أيقو صعداي وحاجرتي هرتا واحد مي سكول 15 كي 2015 حلقة جامعة بلاون وحي هي 2021 how many years أجاب كجرا ماشاس إن بدن وحاوي almost 5 سنة بلس هل سنة وحاول 6 سنة دي 4 سنة إنا باج كو قادتيد 2 سنة مسترنا كو داري كرتا إنه يعني هذا إسلحيليا دمي سكولك أن ديجان هوريك بلاب لها جامعة وحاول مركز جامعة بلابة يبو وحاهيسن كري مستر معناها يعني هدي يقصوا قولي لين وذي لهاي ها يعني هذا هوريك كسي وذي لها لكن هذا عذي إن هوري ما نكبلاب جامعة markaa dhamay 15kii 16kii waxa go'aansaday inaan jaamacad bilaabo haye ani weligay waxa jeclaa iskuulka markaa dhiganayo wax soo saalaasiyar waxa dhaheynay ani waxa baranaa waxa jeclaa wax unique ilaa hadda saasa personality-gay waxa kamid ah in ay qof unique wax unique jecel yani aad wax walba oo aad loo haysanin oo unique oo dadka ku yar yani inaad doorto saxaafada jeclaa إنا برتو شقada igu ciriirin lahayd hay saxaafada marka xigso bilaad ana waxay iskuul ka dhameeyeen so way ii suuro galiysay because cabsida waxa badneed in xiligaas saxaafada wariyaasha la dili jiray waxa sabadnaayeen aabana uu ii diiday inuu iyaga ogolaan waaye iskuulka marka dhameeyay waxa dhahay am waxa baranaa ani artistnimo am waxa baranaa fashion design am waxa baranaa cunto yani waxyaabaha reerka aad ku heystay waxaan aad marka Soomaaliya waxaas dhan la helin wax jaamacad ma jirin de waxaas laga barto ilaa hadana ma jirto Soomaaliya jaamacad cunto marka siisin ku xasna nasro maadaama waxyaabi arabtay ina baratid lahayn waqtigaas ka dhuminine iska gal jaamacad xamar jaamacadaha mid kamid aan tagay public health yaa ku bilaabay 6 bilood marka ku dhigtay public health cunugayga labaad caloosha gale وحنوصدي ولا عي هذا وحا هادتك آد ولا وحنوصدي كرف هذا كدي يا عاد رأي يسوبوا حالة وحا مركو ربو اسكو قصباي أختي اسكي دومي لايقة هذا بس وحا هو نيد وهاي مهين جست واسكس قال لي أقول لي محلي غاز فاكهر إذا ما ده هذا إكسكيوز كلو حاسيه الجورج أكسي جو كرو واحد نوصدي sidii afraa uga qaaday marka ilaahay wuxuu qadaray in de wixii isbedelaan 2016 xiligaas ahayd wiilkayga 16kii dhamaadkiisa dhalay labaad 17kii 18kii ina YouTube soo galo anoo lawadeedii wiil heesto oo manaal markaas aanan dhalin marka YouTube soo galay social media cuntadii wixii la igu bartay kadib waxaa go'aansaday ina waxaan ka dhigto de wax professional ah oo ilaa heer jaamacad maadaama awligay bajeclaa ina barto ha in barto ilaahay marka wuxuu ii qadaray marka manaal dhalatay kadib 19kii manaal dhalatay kadib ina 2021 bilaabo marka sidaas horta safarkayga jaamacadda oo Turkiga ku soo bilaawday xiligaas de financial waa awooday ina wadan kale oo Soomaaliya dibadiisa aan aado
financial كلمة حرية أهان وان أودي أو عنوتين مكاس لوسنا إيسو قارتي ويلشيد وإيسو يركراين فريدom محل يجري وفي عنا هيستي أو دنك حاجة أنا دي فسح في عنا كيستي أنا حلي أو مناسب كسنة دو إيسو رجشي إن عاد بلا حلي قاسين نقطة واتهاي إن markaad turki aaday jaamacadda cunto karinta waadi su-aashii weli waa taagan tahay runta iga waran sidee reaction-ka dadka ka waran horta reaction-ka dadka mise caqabad may caqabado ii dambeynaya dadka markii la yiri nasir dibadda waxay aasay wadanka banaankiisa cunto karin bay soo baranaysaa horta dadka kuma ogaanayaan dadka yani ka fog ma ka ogaanayaan waxa ugu badan oo ku ogaanaya marka ara wax yani qorsheysad ha wax balangareysid waa familkaaga iyo dadkaaga ku dhadhow caqabadii ugu badnaa la kulmay dhanka familka waxay ahayd in la dhahay sidee u bixaysaa ninkaaga ilmahaaga uga tagaysaa so ani waxa aaminsanahay gabadha inay leedahay xaq ninka uu leeyahay kale u fiirsa maanta familka Soomaalida hadii la dhaho nin bixi rabo ilmi iyo xaas uu leeyahay master ama PhD la rabaa inuu dibadda ka soo diyaariyo qof la hadleeso oo dhahayso way uu ninka u baxaa way uu xaaskiisa ilmihiisa uga tagaa ma jirto laakiin maalinta gabar dhahdo waa baxaya waxa ka tagaya ninkayga ciyaalkayga geesaha loo wada dhagaa see ninkaaga ilmaha uga tagay ninka naakalo guursanaya yani kala jar ahaan waa dareemaysaa macnaha see ninka uga tagay xitaa naa guursashada mawduuc kale waa way soo dhaxgali doontaa laakiin caadiyan dadka waxay la tahay wax oo la sameyn karin ama ceeb ah ama gabadhaba inay waxbarasho ninka ka aadi karin laakiin gabadha waa loo ninka waa loo ogolaya inuu gabadhiisa ilmihiisa ka tago I don't know meesha kiimaad fikradaas aad ay ugu badan tahay dadkeena alxamdulillah anu waa la dagaalamay يعني مو كلها ملكل من of course Soomaaliya ka dhashay film Soomaaliya ka soo jeeda labada dhinacba waa la kulmay in la dhaho sidee ninkaaga uga tagay ilmahaaga sidee uga tagay waxaan dhahay ani marka hadda exactly example kan hadda ku soo qaadanaya u soo qaatay qof walba oo su'aashiis i weydiiyo aan hal su'aal weydiinay maanta ninkayga haduu dhaho PhD rabaa inaa ka soo diyaariyo wadanka dibadiisa qof la hadlaysa ma jirto waa la fasaxaya inta sano maqnaad cid ka dab hadlaysa ma jirto xaq uu leeyahay kala leeyahay dhacan asaga raali uu iga yahay waa baxaya yaa laga dab hadlin marka sidii yaa laga ogolaaday reaction code kaas uu ahaa waxyaabaha kale ee la qalbaxeed in la dhahay ninka fursadda una ku aroosi lahaa siisa ninka maalinta ka tagtid oo maxaa la jir jaamacad ka aadid maalintu ku guurnaagta yani fursad uu ku guursan lahaa baa buu helay ani jawaabteeda maxay ahayd kula tahay waa iska sugaynay oo kiyalahan ka soo socon jawaab fiican okiyalaha asla wadaaysid okiyalaha weyn hadwana inuu war fiican soo wadi waxaan dhahay okay ani marka su'aal mar walba su'aal la weydiiyo ama wax la weydiiyo hal su'aalo un ba ii taagnaa waxaan dhahay okay ninkan haddaa dhaho waa la joogayaa waa waardiyeynaya macnaha sas lay ka wada dhigi waardiye ka wada mugta qof nooloo nafle maa waardiyen karaa waa waardiyeynaya jaamacadeydana ma aadayo meel lagu socday haddaan dhaho yaa ii damaanad qaadaya inuu naag dhaafayo nin يعني ما شيء موقتها قفك إنه علينا بلما الله قلي إيو وحاس مال إيدك هذا ميركيس إيو إنه قلبي إلى لي وحاس مال مال إسكديجو يا إيه بلنقاذا إنه ناك دافع هذا له جوجو وعدنا وحكى له سؤال كلو اللي بعده تجنيد وحي هاد حلي جاس أون بيرجلين يسي بريك معلن حدان له أوكي نين فرح صومالي استران فرح يا شو يسوق كذا فرح شعلنا وي فرح ها فرح هذا له فرح إلى لنا وجوجا جامعة دي نن ماذاي هذا أون جوجو وجورسدو حنون أنت ليه قاعد دريم مركز شكلك توقع ما لها واحد بدن باص أصلا جامعة دي هذه لها يا جوجي مركز وحنا أوكي ما دام أنا دي أن محل اللي يجري مركز كسب كاسي حنون بدن تلا وحنون دريمي حنون كبادو إنا وح رياضة هذه هاد نين إنا إلى ليش درتيس أو بربوريس حنون كلا هذا أو بيح أكبقيسي يبغوا دعين لكن مركز يولكا وعدي هناك دي القرص حتى you don't care وما جبيسد أدلستي هدف كاي الرياضة دي رمسي قف ميلتا قف ناق ميلتا تاقباتها ها أنا مركز قوان كي يساسوها wixii dhici doono qadarta ilaaha u dhaafaa dhahay haddee dhacdase
waxaa taaganahay hadafkayga anoo rumeynaya dhacde alxamdulilah ka waran jaamacadda marka saasaa ku bilaabay marka jaamacadda ma adoo marka Soomaaliya jooga xaraysatay mise marka xagga tagtay baad apply gareys horta jaamacadda cunto karinta caawda ganaha may jaamacadda anoo Soomaaliya jooga ma xareynin waxaa jirta horta Turkiga inaan jaamacad cunto ka bilaabo wax dhaliyayaa jiray 2021 may 2020 December waxaa jeclaystay marka koowaad horta inaan dalxiis ahaan u baxo waxaan dhahay wax yar vacation iska aaday hal bil Turkiga aaday waxaa ogaada marka in fursado badan ee jiraamka Turkiga aatay kadib fursado badan inay jaamacado leeyihiin cuntadii aarabay ee jirto qaar ay jiraan diploma ee 2 sano qaar baaj 4 sano aan marka vacation ka soo laabtay aan waxa la soo laabtay anoo wato riyadeedii oo dhisan oo book qoran hada okay saas horta ku bilaawday kadibna Turkiga ku laabtay waxa u laabanay mar labaadka alaabanay hadaa xasuusatid waxa dhacay Somali Night Award oo best female youtuber sanadkaas qaatay waxa isla safarnaa aniga Ishaadi iyo so xafladda u baxay eventigaas u baxay inaa ka qayb galo bishii uu dhacayna xiliyada waxay jaamacadaha ay xiran yihiin ma aragto la xareysto in sanadka cusub jaamacadda waxa aragtid xiligaas isku soo aaday xafladii markay ii dhacday kadib aniga waxa u kaba gashtay inaan raadiyo inaan jaamacad xareeyo sidii marka ku xareeyay way ii soo baxday jaamacadana ay aqbashay oo hadda aan ka qalin jabiyay kadibna dhowr jaamacadood xareeyay midana hor helay sidii ku bilaabay caqabadii ka waran wadan aadan wax ku baran walahi caqabadii iigu adkeed oo mar walba xasuusto waxa waaye ka fogaanshaha ilmiga ag soo fogaaday sababtoo ah markaa go'aanka qaadatid iyo markaa wixii dhex gashid situation galaysid marka qaar xalaga inaysan ku sawirneen wax markaas yani waa bixi kartaa okay waa ka soo bixi kartaa xasaas dhaay laakiin mi sawirneen situation ka gali doono marka jaamacad bilaabo hooyo ilmaheeda ka tagtay ha xanuunka aad dareemi doono ina haweena badan ciyaalkayga xiisa u qabo u ilmeen doono u weyn doono markay soo wacaan oo wajiyadooda video call ka arko ina emotional noqon doono waxaas dhan ii sawirneen laakiin markii aan wixii dhex galay oo bilaabay ay xaaladaas qabsatay aan waa xasuustaa hal sano markaa wada jaamacadda sanadkii igu adkaayay sanadka koowaad oo sanadkaasna yani aad dareemay mararka qaar waxaa iska dareemaa anoo iska joogo guilt iyo ilmaha maxaa uu soo faatay waxbarasho darteed lema oo soo tagtay ilmaha iyo waxbarasho aqaalisan maanta waxay haysaa jawaabtay labadaba qaali sanad markaa jaamacadda aa dhigtay oo fasax aa galnay caadi u gif abkariyay xamara imaada waxaa iska soo jira jaamacadda u laabanay yani imagine waa xasuustaa haweenkaas waxaa u tagay walaalkay curadka intaa ka salaamaya maxamuud shubka curadka aabahay asiga haweenkaas la joogno waa isla fadhinay waa u sheegay waxaa ku dhabool waxaa dareemayaa inaa jaamacadda iska dhaafo ilmahayga dartood maxaa ku dhahay maalmo markay isoo wacaan wixii uga sheekay adi oo sanadka koowaad aa maraya dhan dumara iska taa waa taqaanaa hormoniskaaga baa isbedelaayo maalmaha qaar baa emotionkaaga iska gacsan yahay maalmahaas ma iskaga jirtaba ma kusii jirtaba reasonkii aa ku oyn lahaa waa haystaa yani reasonkii aa ku oyn lahaa markaas waa haystaabo hal kool oo xamar iiga imaado ilmahayga bisaa igu filan oo inta yani inay isaarantahay hadan abawaa uga sheekay waxaa ku dhahay way igu adag tahay inaa ilmihii ka maqnaado 3 sano oo hadda sii dhiman aan haddana ciyaalkayga kasii maqnaado aaday igu adag tahay ku dhahay abow inaa jaamacadan iska joojiyaa go'aansan nasra muwaalan tahay walaa wax xasuustaa aan maasha Allah hadalkiisa haweenkaas igu dhahay wax badan inta ka bedelay yani iga bedelay وحنا نصر ما نتهاي وحن هدي دمانا 3 years أفكي يعني كبدن تهاي لكن هدي سورية هذه دنا والبو وحي آخرين كروية آخرية راو إسارة إنجليز وحده هل سنة أنا هدرسان أكو لما يستي هاي ستيفن وحي صدق ما شاء الله marka dhiirigelintii saabinka soo xabdan iga bilcaan waxa sira okay iska sii wado waad kaan doontaa soo sanad ka dambeeyo waa sii adkaanay fahamsa yani wixii waa la soo qabsanay marka caqabada ugu darneeda xasuustaas ka mid sidee bay saabtan u maareysaa shaqooyinkeeda nolosheeda korinta ilmaheeda waliba adigoo caan ah oo shirkada la shaqeyso oo subaxda guriga inta ka baxdo ilmaha waxbarasho aadayaan maarta xaajeer isla nooshin hadda magaalada Nairobi aad ku cusubto hada orbido aad degan tahay
arrinta nasr say u maareysaa والله taas waxay ku xiran tahay isleeyahay ilmaha ku joogo kow age-kooda qofka ku caawinayo kalsoonida aad ku qabtid ama kula joogo ilmeyga ani maanta walwal badan ba ka qabi inaan ka tago sababta away wada koreen alxamdulilah manaala guriga ugu yar manaala almost wadaanka 7 years jirtaa qoftas marna anay manaala ugu yar 7 years jirto yani ilmo oo maanta 1 sano iyo 2 sano oo laga walwalaa jira ma aha number 2 dadka guriga ii jooga alxamdulilah familkeyga qayb kamid ah ila joogaan gabar ma sha Allah ilmaha sanado badan ila heesayo xamar ila joogtay ilaa waay xamar ilaa hadda 7 sano almost oo xamar iga soo raacday ila joogto habartay ila joogto oo aydan iga wareys marka cidla ma aha soo taas familka sababka ka heesto iyo dadka aqoolka kalsoon oo ciyaalkeyga la jooga iyo ilmaheyga oo koray waxay qayb weyn ka qaadatay inaan maareeyo shaqooyinkeyga iyo maxaa la dhihi jiray nolosha hooyanimada ma fahantay saasay tahay iyaga waqtiyaasiya maalin gaar ay leeyihiin isbuuca ay ku tashtaan ama jimcaha ama saturdayda oo aa waqti la qaato ama banaanka haddii rabaan banaanka u wada ama guriga waqti kula qaato cajiib ka waran si guud caanimada soomaalida ka waran walaahi caanimada waxaa waaye midi laba af leh dhinac xun iyo dhinac wanaagsan labadaba way leedahay hal dhinac ma uga ii kari dhinaca adigu ka joogta faa'iidada ka war dhinac wanaagsan walaahi alxamdulilah ani dhinaca ka joogo dhinaca wanaagsan ilaaha ku mahadsan horta i waafajiyey inaan maanta dhinac wanaagsan oo yacni muuqato ama bulshada ay igu ammaanayaan aan uga jiro waxaa dhihi karaa kolley dhinac ugu fiicnaayo laga soo geli lahaa waaye ma fahantay faa'iidooyin badanayna leedahay ay ka mid tahay dee in aa heshid sponsoro badan shaqooyin badan maxaa la dhihi jiray dad badan kambaniyaal kala duwan aa la shaqaysid waxyaaba badan oo free aa heshid tigid free aa iska heshid hotel free aa ku degtid ma fahmaysaa marka fursado badan ay leedahay in lagu maamuuso oo lagu qadariyo lagu sharfo meel walba aad tagtid madaxa lagu saarto qof adoon caawinaad weysiisan wajigaaga inuu kuu noqdo baasaboor oo meesha istaagtid baa lagu dhahay nasar maxaa u baahan tahay airportyada meelaha aa ka baxno yacni meelaha publica la isugu imaada meel walba in lagu qiimeeyo lagu sharfo madaxa lagu saarto faa'iidooyinkeeda ka mid tahay waaw dhanka kale waxaa jira kumanaan kun oo dhalinyaro ah oo Soomaaliyeed wax soo gudbiya laakiin aan soo gudbinin contact macna leh iyo waxba aysan soo gudbiyo waxba ka faa'iideynin farin yaro gaaban hadaan ku dhaw dir maxaad oran lahayd maanta walaahi waxa dhihi lahaa waxa ku weysay sharaf iyo qurux iyo qiimo ma ku helaysid sharaf daro even hadaa ku heshid xataa magac way jiraan dad badan oo si qaab daran magac ku soo sameystay even hadaa ku heshid xataa wax waliga ku dab soconayo xitaa hadaa noqotid qof soo wanaagsanaado wixii wax duwan oo social media ku jira waa mugti ama laga yaabo mustaqbalkaaga inay saameeyaan laga yaabo ciyaalkaaga in la tusaayo yacni wixii kaa soo galay social media say kaaga soo galeen waaye so adoo magac raadinaysid waxaa dhihi lahaa wax xun iska ilaali bas wax weligaa ku daba socona aa kaa haraynin waa hadaa noloshaada dhan saameynayso isku day inaad dhinac fiican ka soo gashid hadaa dhinac fiican dee ilaahay kuu socodsiin waayo faraha ka qaad iska daa irsaaqada kaleeto ilaahay badiyey irsaaqada raadsa aad iyo aad waa tahay gabadhu inay hesho nin wanaagsan oo ay isfahmayaan guusheeda door noocee ka ciyaartaa mise guul ma keeni kartaa arrintaas of course way keeni kartaa guul ma dhihi karno guul ma keeni karto haddaana la isxaqiraynin ninka wanaagsan waa ninka kugu garabsiinayo guushaada nin kugu taageerayo riyooyinkaaga inuu kula rumeeyo nin kugu kalsoonaanayo ku siinayo ixtiraam iyo jacayl kaa ilaalinayo khiyaano iyo stress iyo walwal sababtoo ah intaasba gabadha waxyaabaha biiqay ku jirtaa ma fahantay gabadha dee stress ku furan yahay nolosheeda buuq ku furan yahay habeenii maalin dee nin xuno ama u gacan qaadayo ama maseerayo kalsooni aa ku qabino ama aflagaadeynayo ama yacni la joogo waxaa waaye way adag tahay inay meel sare gaarto way jiraan gabdho ayagoo yani niman noocaas la jooga haddana guulaysta laakiin aad ay u adag tahay soo aadi su-aasha ay weydiis maadaama ay ninka wanaagsan waxaa aaminsanahay 80% inuu qayb ka qaato gabadha guusheeda ma fahantay hadday ahaan lahayd dhinac walbo
emotional inuu ku taageero, financial inuu ku taageero, inuu ku dhiirigeliyo, inuu qalbigaaga ilaaliyo, stresska kaa ilaaliyo iyo wax walba ku dhibaayo. Nasra Abdidoon meesha ay ku fikiraysay maanta ma taaganta? Wallaahi horta alxamdulilah ma dhihi karay 100% waa taaganahay, laakiin alxamdulilah intii ugu badneed waxaa aaminsanahay inaa joogo. bini'aadanka waxaa waaye baahidiisa ma dhammaato. waxaa xasuustaa 1 sano ka hor isla bishaan hadda aan ku jirno August Turkiya joogay waa xirxiranay. Turkiya soo macsalaaminay waxay ahayd safarkii ugu dambeeyay aan Turkiga kaga soo guuray. waxaa ka fikiray Nasroy ma arki doontaa adigoo ilmahaaga hal meel wada degan tihiin, xaajigaaga ciyaalkaaga kulli guri qurux badan diyaarsatay, ilmahaaga waxbarasho ku bilaabeen, Soomaaliya kasoo guurtay. sababtoo ah inaa Soomaaliya kasoo guur balanskii ugu horeeyay ku jirtay marka jaamacadii soo dhamaato. Soomaaliya kasoo guurtay wax weyn ay iiga dhigneed. maanta waa heestaa alxamdulilah, bisheedii yaa la joogaa. hadda maanta haddaa la ii wareysto dabaq kalaa ii dhisan. fahmaysaa? okay, waxyaaba ii raacsanaa waxaa ka mid ahayd xilligaas markaas aan ka fikiraya adiga ciyaalkaagii wada joogtiin, shaqo bilaawday, shaqeynaysid, deegaan cusub iyo magaalo cusub waa imaanay mugta. isla xaajigay sidoo kale shaqadiisa ka fikiraya because xamar uu ku shaqeynaa inuu inta shaqo cusub ka bilaabo. wixii dhan hadda yani oo markaas niyadeeda ku jira hadda waa wada haya alxamdulilah. yani sida u sawirnaa ama ilaah uga rajeynaya aa u wada heystaa, ilaah ku mahadsan. still haddana dabaqay kala hadda ii dhisan oo riyooyin kala ii muuqda isleeyahay meel hebel ma arki doonta adoo joogtid. so waxaa waaye wax oo dabiici in bini'aadanka oo baahidooda aynan dhammaan. sababtoo markaa wax aa rabtid oo wixii aa gaartid ama aa heshid wax kale baa ku haminaya. marka waxaa isleeyahay wax badan oo ii dhiman yihiin, inta ugu badneedna waa hel alxamdulilah. waa tahay Nasra, hooyada dadaashay ee wax baratay, hooyada adagii ee samirtay ee nolosheeda kusoo dadaashay, awlaad noocee ay soo saartaa? hodmanay waxaa aaminsanahay hooyada markay noocaas tahay hooyo adag, hooyo dadaal badan, ilmaheeda inay u tahay tusaalaha koowaad. markay iyada maskaxiyan u korto waxay soo saari kartaa ubad maskaxiyan u korsan, ilmo kalsoonidooda dhisan tahay. ilaaha nagu asturo mar walba waxaa waardiinaan ahnay inaa dadaalnaan laga rabaa. haddana saasay tahay hooyada inay ayada maskaxiyan furanto oo ay noqoto qof open minded oo maskaxiyan ay korto, qayb weyn ay ka qaadataa caruurteeda. inay ilmaha laftigooda ka taxadarto, kalsoonidooda, inay noqdaan ilmo dee meel iska soo saari karo. and at the same time waxaa aaminsanahay in ciyaalka ee hooyadooda tusaalaha koowaad u tahay. hadda tusaale gurigeyga markaa joogo anigu ay aragtay inta badan waxaa ahay sanadihii u dambeeyay qof oo healthy ama fitnesska ku dhex jiro, exercise sameeyo, gym aado. ciyaalkayga hadda waxay gaareen inay dhahaan hooyo wiilasheeda wax yar, labada wiil way soo cayileen hadda bilahan hadda dambe. dhowr maalin ka hor ay weydiinaya dhahay hooyo wax la isku caateeyaa rabo inaa isiisid, ana ada camal aa rabaa inaa caataado. yani fahmaysaa meeshaas waxaa ka arkoyaa cunugaas caatinimo iyo wax la isku caateeyay asagoo intaas la-eg inuu ku fikiro waxaa keenay waa wuxuu aniga arkaayo. gurigu ka arka waa wuxuu aniga arkaayo, anigoo jimka aadayo, anigoo cuntadii dhahayo waxaan waa iska ilaalinaa macaankaan tirada badan, ayaga dhahayo waxyaaban caafimaadka ma u fiican iska daaya. soo hooyada mar walba waxay role model u tahay ama tusaalaha kuwaad u tahay caruurteeda. soo waxaa aaminsanahay inay qayb weyn ka qaadanayso inay noqdaan caruur ma aragtay maskaxiyan u korsan, caqli badan, bulshadana anfaco. waa tahay inaad gym aadid, shirkada la shaqaysid, sii wadatid muuqaaladaada iyo arrimahaaga, aad noloshaada biisi ku ahaatid, dhiirigelin badan bay u baahan tahay runtii, iyo inuu qofku boorka iska jafo. dad badan shaqooyinka aad qabatid qaarkood ayagoo dee ma qaban karaan, adigu hooyaaba tahayba, maxaa ku dhiirigeliya? wallaahi horta dhiirigelinta maalin walba ma la haysto. markii hadda lii arkaayo anigoo wax walba socod u dheelmanaayo, gym aadaayo, dadku waxay malayan inaa everyday qof ahay motivation haysto, dhiirigashan, laakiin ma ihi. waxaa isoo mara maalmo ay u adag tahay inaa sariirta ka istaago, maalin energy ahayaa, dhiirigelina haystaa. so maalin walba iskooda mid ma aha. number 1 maalinta marka waxaa la rabaa aa caajisan tahay oo aada rabin inaa sariirta ka kacdid ama socod aadid ama gym aadid ama shaqa aada rabin xataa inaa aadid, in maalintaas disbliinkaaga uu shaqeeyo.
ما فهمت oo aad tahay qof ha discipline leh oo discipline-kaaga uu ku istaajiyo uu ku kaxeeyo oo ku geeyo gym-ka maanta dhiirigelin ay haysatid maalinkaas motivation-kaaga ku wado waxa koowaad marka dhiirigeliyo waxa waaye marka intaas laga soo tago discipline-ka iyo ina mar walba waxaa jeclahay personality-gayga inaan noqdo saashalay ahaa si ka fiican so waxa koowaad oo dhiirigeliyo waa midaas targetkayga nasar saashalay ahayd inaad fiicnaatid rabtaa dhinac walbo hadday noqon lahayd aqoonta hadday noqon lahayd self improvement inaa sameeyo hadday noqon lahayd physical inaa qurux badnaado waxaa rabaa isbuuc ka hor bil ka hor saa ah inaa ka fiicanahay so mar walbana waxaa isku dayaa inaa joojiyo habidiyada xun mar walba sameeyo habidiyo wanaagsan ama caadooyin wanaagsan so waxa koowaad dhiirigeliya ama dhiirigelinteeda koowaad waxaa waaye noqo the best version of yourself shalay iyo bilihii horeetay isbuucaashii hore qof ka fiican noqo dhinac walba ka korsan ma jira sheeko ama dhacdo noloshu ay ku bartay oo dhahaysid noloshu waxaas ay bartay walaahi nolosha dhan waa wada cashir waxaa aaminsanahay waxa aawada ahay iyo waxa aawada sameynoo dhan nolosha ay wada bartaan ma fahantay nolosha maalin walba cashir cusub ay ku siinaya xanuun walbo oo isoo maray waxaa aaminsanahay inuu iga dhigayay qof ka fiican qofkii shalay ahaa inuu iga dhigayay qof adag so mararka qaar xanuunada markay nagu dhacayaan anaga waxaa u malaynaa wax dhib waxa ma hadan igu soo laabtay waa dhibsane laakiin damo oo wax adag ay kusoo maraan ama wax culus nolosha waxay kuu diyaarineen nolosha saa u wajihi lahayd kalsoonidii iyo adeegii aan nolosha ku wajihi lahayd ku diyaarinay so wax walbo ama caqabad walbo oo nolosha aad kala kulmaan cashir ay siinaysaa waana midaas waxa loo baahan yahay haddii caqabad maanta ay kusoo marto aadan cashir ka qaadanaynin dee wax mise kaa bedelin wixii kugu dhaca maanta waa inaa cashir ka qaadan kartid ilaa intee la eg way nasar ku kalsoonaan kartaa saaxiibtinimada والله saaxiibtinimada waxa uu isku dhiibtid oo dhigay qofka saaxiibkay oo walaalkay meel weyn boos weyn buu taagan yahay qofkaan ima lumin doono ana ma lumin doono alxamdulillah nolosheedu way ku jiraan saaxiibo noocaas laakiin shakhsiyadeeda waxay u samaysan tahay in ay ugu adag tahay in qof si dhaqsi ah ku aamino in yani ilaa heerkaas aa gaaro oo qofka aa iswada siiyo waqti ay ugu qaadataa number 1 number 2 ma aha waxa ka fikiraa isdhaho hebel ma isa siisaa saaxiibkan ku qalmaa qalbigaa ma wada furtaa marnabo yani waxa ku fikira ama asku diyaariyo ma aha saaxiibada aan leeyahay hadda inkastoo ay kooban yihiin 2 iyo 3 ka badna soo saaxiibada oo waxa sheegaya yani de saaxiib ereyga saaxiib qaadan karo qofta waxa jirto هذا كور حتى مرة تيك توك يقاسوا ليه I'm friendly but not everyone is my friend قف أو friend اللي مكاتها قفل بالصاحب كان معها لكن قف أو فرفرنا تاعي أصحاب ولا لكن صاحبة مركي نقطة هذه أكوبيهم لا بيسدح مكبتان صو حأميزنه كل يحقوا مع ناس الدبيعي قوي معته إن أنا سكفري كوكالسون دريمة قلب جذهيجة يعني get feeling كي ويسينا يقف كأننا كوكالسون أنكروا باكور هلاي سينجرا لسكي إيمانيس ودبيعي مفهموا سا مركا وقتنا ويوقع هذا تا إن قفك منو كوكالسون هذا at the same time وحني أدور تما وحن ركاب قفك أنا جالس دحقلني روح ذين يسفهمي سو كوكالسون دريمة comfortable إنه أحول بكل هذا اللي كرا لا موسى أكيد ما شرت إن لده هذا كعان كاهي ودنيستيا لبرون قفك تسمع حبك فائدين ما نبرتان لبنا صاحبان وإسلويهين أو هذا ما أنت هذا يحتاج تصور لك صار لقوا فيرني وحلو قولي هذا هو نقص ولا بنيا هذا وقتك وما هيو بلمها إذا كلا جلان حتى هذا يقول قفك حبك فائدين بدنا ما أوفيان أنت كورد ولا أرنت أسبوع ما مكره كري wax badan oo runka ahaa jiro waxa la bada hal walaa qormiyo hadii de cycle ku wada jirnaa mugtahay oo caanimada soo qof kamid ama laba qof kamid ah markay xumaato oo lagu arko anaga dhan inoo saameynay waxa la dadka caanka ah mal dhahay hebel iyo heblaayo balanta ay ku xun yihiin hebel iyo heblaayo isla weeyeen mal dhahay waxa la waa la isku wada qabanaa jumla noqonayna marka ani mis amaanay man isfaaninay madahay aniga saana ahay dadka caanka waa ka duwanahay laakiin waxa taas kaga jawaabi lahaa anin personally nasra ahaan inta ii taqaano ay qeexi karto balanta ina ku fiicanahay ina isla weynahay dadka saa ula dhaqmo waxyaas dhan darago ina ka dhaxlaydan qofka waxaas dhan waxa qeexi karo
dana gooni inaan ka dhex raadin exactly waxa qeexi karo dadka personal ii garanaya laakiin hadalka aa sheegtay way jiraan dad badan oo dee social media iskula jirno magac leh oo qaabkaas u dhaqma ama danaystayaal ha noqdaan ama inay kibir badnaadaan laakiin ani waxaan aaminsanahay waxaas dhan in wax lagu faa'iidayo aysan ahayn inaa isla weynaatid inaa maxaa la dhihi jiray wax wanaagsan runtii maaha dadka aa ku danaysatid sifooyin xun waaye aad iyo aad hooyanimadu ma tahay caqabad sometimes gabdhaha seejiyo goolkooda ama meesha u socdaan mararka qaar bet waxaa jiro hooyooyin ay ku adag tahay hadda tusaale ani go-aanka aa qaata hooyo walba ma qaadan karin hooyo adag unba inay qaadan kartaa aaminsanahay in hooyo intay baxdo saddexdeeda cunug ka tagto maalin cadee yaa diyaarad ka raacdo wadan kale waxbarasho aado 4 sano ku maqnaato yani go-aan oo hooyo walba ay samayn karta ma aha soo haddii hooyada ee caqabada koowaad ee ku noqonayaan yani waxaan samayn karta wax walba ilmaheeda ay fiirinayso caqabaday noqonay of course hooyanimada markaas caqabaday ku noqonay soo waxay ku xirantaas leeyahay hooyanimada ma ku xirnee shakhsiga ama qofka ay ku xiran tahay si uu caqabadaas ama uu gudbi lahaa ama uu fariisan lahaa caqabadii ugu filgaroobi lahaa social media waxa ku daawanaya dhalinyaro aad u fara badan gabdhuhu waa percentage ugu badan social media jooga ama adeeg ku taageero ku daawada aad iyo aad ma jiraan saddex sifo wanaagsan oo aad ilaahad gabar gabdhaheena saan u aragnay social media markaynu eegno oo hintooda iyo stresskooda iyo arrimahooda iyo dhibaatada guryahooda ka jirta runtii aad bay u badan tahay oo sacbo laguma qarin karo ma jiraan saddex sifo wanaagsan oo aad ilaahad gabadho lamaanaha ay xulanaysaa ku xulato say nolosheeda u waarto guud qurux badan ay u hesho ama awlaadeeda iyo arrimaheeda ay u ilaashato aad iyo aad haye okay qodobka koowaad waxaa dhihi lahaa ninku jecel wow ninka ku jecel ama of course ninka ku jecel ama lamaanaha markuu ku jecel yahay especially jecelka markuu jecelka kale ay moogtahay maruu jecelka gabadha ku badan yahay maruu ninka ku badan yahay mar walba dooro ninka jecel badan ama jecelka uu asagu ku badan yahay ninku jecel uu ku tanaasulayaa wax badan oo dartaa u sameynaya because of jecelku uu ku jecel yahay inuusan kulus gareenin darteed soo qodobka koowaad waxaa dhihi lahaa ninku jecel talabaad waxaa dhihi lahaa ku dooro qof naxariis badan haye ku ilaalinaya sababtoo qofka markuu naxariis badan leeyahay wax badan oo ka ilaalina wax badan kuuma quuraayo because naxariistiisa yani ama shakhsiyadiisa naxariis ka mid okay lamaanaha waxa kale oo ku dooro dhihi lahaa waxaa waaye qof iimaan leh fiican ama diin iyo iimaan celinaayo leh sababtoo qofkii ilaahay ka xishoonayo adigana wuu kaa xishoonayo so wuu ku ixtiraamayaa waxaa waaye ilaahu kaaga xishoonayo ma fahantay wuxuu ogyahay xuquuqda la isku leeyahay qof xuquuqda la isku leeyahay wuu ogyahay qof ilaahaysa ku xiran hadduu yahay dee inuu ku ilaalinayo aaminsanahay soo saddexda ugu muhiimsan jacayl naxariis iyo iimaan weliba mid koowaad aad soo hormarin lahaa mid u dambeysay oo iga soo kala hormartay cajiib waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka nasra haddii la meel ku noolo doorashada xagee dooran lahayd wadan ma ka dhaaftay ma kama dhaafi kari shaqa meesha u joogaan wax la dhaafay meesha ma jirto walaahi horta ani horta wadamadan aan jeclahay hal wadan caawa wadamada shar lama siiniyo hal wadan bas aan leeyahay maya ani haddii meel aan ku noolaanayo abid africa magaaladee africa waa qaarad wadan maaho soomaaliya hadda waqtigaa la joogo waxaa jiray dano gaar oo halkan u nooshahay u timid iyo duruufo gaar aan uga soo tegay waa intuu imaaday laakiin markay noqoto jacayl waa wadan aan jeclahay inaan ku noolaado ma fahantay xagee Soomaaliya gaar ahaan of course magaalada aan ku dhashay Muqdisho la xeebta leeyahay xamad barashadeena xaafadan ku kulanay meesh xudunteeda ku aasan tahay oo ku dhashay oo ku ilmo dhalay ma meel ma ka doorsan kari aad iyo so ani waa jeclahay yani noolaashaas markii laga soo tago qof waxa ahay inuu maanta traveling sameeyo wareego ma fahantay wadamo kala duwan tago laakiin markay noqoto nolol Soomaaliya dhila waa ogaay laakiin doona xalliil hadii Soomaali dooranayso hadda kay u doorato kay way sheegtay hadda waa sheegay hadan iyo duruufo baa jiro hadda aan uga soo tegay waatay cuntooyinka la cuno cuntooyinkii favorite-ka ka heshaa malaay waa cabitaan
waxyaaba la cabo انت ما يدل بربطة maqaxya farsi maran adaa wada waxaa tahay ma ogtahay jikadii oo socota كفتبة هاي عبيتان أنا عبيتان كل دون أجعلها هل حد مو دور كر أنا دنا واجعلها باشا أجعلها على ناس أجعلها مانجا أجعلها هاي قيمة عبيتان دنا كأنا واجعلها dharka la xirta kalarkee markaad xiran tahay aad dareentaa sarreyn iyo quwad gooni ah aad ka heshaa وكح ما أنت موتي مرة دمعي إنها صوحر تدنا وحاسة هو كوبد بدأت تدك باكو كنا عي ولا بس إسكده I love black color أنا وقت ما تعدا يبدت favorite color كي واي color كي كوات واي maanta waxaa ku marsan makeup inaba caadi ahayn marka makeup marsan tahay see dareentaa ولا حد رمى قرح ذي إنه وحر إيه قدري هذا قرح بدن بعدين كورس ما أنت حاكس مرست ميك اب ما أنت سالون كاكس مرست ميك اب ما أنت حاكس مرست دي سالون هذا سالون كم تجرو ماشي كلي أنكلي بستو إسكا قرحيو يا the queen dome واو مطوبة كتير مثل تريبة كتير مثل حاجة مصوبة كتير سؤالي ميك اب كسو بيشو تبتبيها وحاك ون ويندوم ون وبكسر لبستي واو إنه عادي ما كوين دب واتهاي waxaan soo gaarnay gudsiga gooda haddaan ku dhaho Soomaalida ku daawanaysa dhalinyaro waayeel siyaasiyiin ganacsato cid walba hooyooyin hal fariin oo meel ka wada taabanayso muhiim u dhaaf maxaad oran lahayd maanta noloshaada iyo noqonin adduunyo bas يعني مر والبقى الدنيا أو كنت لحتكت آخر هذا الإسكريني سو إسكو دحوذا نلاش هذا الدنيا دي تن آخره فريد أو دير لها هل سؤال قرأي وصل عادي هل سؤال أنا كتير كلمة وصل عادي ما أنت عام بعد هاي أنت صملين بعد هاي السوشيال ميديا هذا يا عاني من أبال كلها ما أنت أتنكي ورنسا سؤال ما كدفتت بس هلقف معها هلقف عاني مذي إذا تانكي مؤديك رسوت عاني مذي إذا دت بدنا عقيب كقاتي oo siyaabo kala duwan ii soo caawiyay ma fahantay garabyo kala duwan ii noqday laakiin haddii la noqoto inaan hal qof ku soo koobo of course xaajiga kas xoriyadu i siiyey sidoo garab iigu noqday sidoo ii taageeray sidoo ii dhiirigelin jiray sidoo wax badan iiga tanaasulay soo waxaa aaminsanahay freedomku i siiyey kalsoonidu i siiyey qayb badan ay ka ahayd ما شاء الله أسأل كرا ما شاء الله ودورك وناكسن أو عيالك رنك رجعي مركي ما تحاسك سقيس كسي جرجيسة آديات بان وسلام يا أول ما علنيا آديات بان نصر كنتي فرحة شرف أيوة إنه رئيسان كاقاد وحن كاقا ما علنيا تايم كاقا iyo sida isu achiibtay waxaan ma hadcelinayaa salonka Queendom oo asagu mar walba ah halka aan la laabano labiskiisa shaxdii makeup-ka quruxda waxaan ma hadcelinayaa dhammaan daawadayaashayda daafaca caalamka la jooga iyo waliba sidoo kale kamermaankayga qaaliga ah Malik oo marba muuqaal qurux badan halkan aan ku sameeyno intaan ku kulmayno wareysiga xiga waxaan ka tagnaa sidaas iyo nabad iyo dawladnimo Soomaalida nabadgelyo subscribe iyo like iyo share ilaawin